YouTube channel ka daawanaysan oo Soomaal official fadlan dadka cusub ee YouTube channel keena subscribe like share check fadhacsi hadda hore joogtana aad baad mahadsan tahay asxaabta quruxda badan meel baan igu daawanaysan horta marka ugu horreeyay soo dhawaada marka xigta waa markii ugu horreysay anigu keligii oo taagan oo aan ka soo muuqday YouTube channel kan Soomaal official hor ahaantii mar aan dad aan la joogo iyo waxyaabahaas aan soo muuqan jiray ama mar aan sameeyay vlog iyo wax la mid ah caawa waxaan nasiib u yeeshay anigu keligii sababta yani inaan idin wadaago marka barnaamijyada oo aan hadda caawa idin wadaago koow horta waxa kamid ah maadaama aan keligii ahay kulamada soo socdo waxaan rabaa yani inaan aad idin xiiso geliyo oo dad badan oo yani magac leh oo fanaaniin ah inaan horta ay ka soo muuqdaan YouTube channel-keena waadna la socon doontaan wax badan oo ka faa'iidi doontaan waxa iska kiisoo dhacday sheekooyin aad u qosol badan hadda kor waxa dhacday anaga oo dalkii hooyo joogno masha Allah oo dhalinyaro aad fara badan marka hadii xaafada la degan yahay dhalinyarada mar waxba xiiseeyaan waqtiga waxa xiisii jirnay wax la yiraahdo qoley xiisii jirnay waxa laga yaabaa dadka qaar in soo qoleyda is fahamsaneen waxa la yiraahdo shimbraha oo la dhaqaalisto oo ciyalka xaafada yani iska dhaqaaleystaan marka qofkii shimbirtaas uu yaqaan qoley waa uu yaqaan qofkaan qoley aqoonina waa bakaasan waxaan jirto maalin ma kamid anagu qoleydaas doonayno oo yani inaan soo gadana rabno oo isku raacnay yaa waxa dhacday yani xaafad oo magaalada yani meel kamid ay ku taalo ama hadaba taqaanidba magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafada Bakaaraha anagu dhaxsano yaa waxa aragnay qiiq meel ka shidan hadii dadka dhalinyarada waxa taqaan oo fahmi karto dadka sabta ka heli jirta marka xaafad sabka jirta aan ka dul dhacnay anagu qoley raadinayno yani waxaan soo galay damac inaan sabtaas aan galno oo aan dilna amaran soo gashay dhalinyarada qaar kamid ah waxay dheen waa galeena iyagoo galayaan mid maqtuuba oo nin weyn ah irda tagna marka oo yani ogoleenba qofkan la aqoonin inuu soo galaba xaafada mid kamid ah oo ciyalka xaafada oo Cabdisad la dhahay isku tooray irda ku galay xabtigii waa soo il xaga soo talda sabta raba waxa yiri saaxiib Suuriya ligiri kala meeshan dad yani la yaqaan loogu tala galay iska baxaa ligiri oo soo baxnay markii kuma masaadkeen waa iska soo baxan oo qasdigeena wuxuu ahay yani qolligaas ina raadsano waxaan soo wareegnay dhowr daqiiqo ka bacdi ama dhowr saac ka bacdi waan soo laabanay xaafadii ku nimaanay iyo xilli qada la joogo kabacdi waan fiiri waxaan dhaniyo baashan ku nimaanay waan xilli dambe aan galno iisan dhaafin hay waxaan isku raacnay inaan galno qorshaha la keenay yeemka qorsho waxa isaga soo dhacday hab meeshan lagu gal ana waxaan dhahay marka khayarta markii ugu soo dhacday aad baan iska qosla waxaan dhahay khayarta meeshan iska jooga ana tagayo ana baleen keenayo luqan istaaga amal waayo waxa ogahay hadii la tago sabta in la iscelinayo iridana waxa taagan wali ninkii maqtuubka ahaa yani maqtuubada fahmin ba yani nin weyn oo xoog la amal oo jeeda dadka qaar ay fahmin marka ninkii meesha u tagay waa arkay inuu celinayo marka arkay inuu xoog isu fiiriyay wax gudba iska dhiga xagee u socota waa celiyay waxa uu fikiray yani waxa arkay dumar badan oo meesha dhex socdaan ilaa rag iyo dumarka mar walba waxa iska beerjilaan dumarka iska beerjaan waxaan dhahay dumarka meesha joogan dafaadu ma ayri islaan meesha joogta ha soo tiraaday mana aqaan laakiin magac waa isaga nasiibsaday oo waxa ogahay yani magacyadii horeeto Faadumo iyo Xaliimo iyo inay ahaayeen magacyadii horeeto oo hadartaan yani Salmo iyo Salmaan iyo Sihaam iyo in magacyada dambe laga dhigay marka waxaan dhahay dafaadu ma aan dhahay eedo islaan ay soo tiraadaan waxa aqoon u lahayn kaasayri ma joogtaa Xaliimo ha way joogtaa Xaliimo noogu yaraan dhahay banaanka lagu celi abdi anaga banaanka lagu celi amale wariya isoo daa wiilasheeda isoo daa amal aqyaartii oo waxaan dhawriya kaalay soo gala dhani soo gala saddexdii kale ila socotay si tartiib ah meesha u soo galnay tartiib nadaam meel la fadhiisay eedana ma naqaan dadna meesha kama naqaan laakiin si farsamaysan ku galnay marka meesha aan galnay aqyaartii waa la soo wareystay ka waran actionka meesha aan ku soo gudubnay aqyaartii cilmiga kala adeeg sabgaad waxa jirtay naqshadan biso ragaas waxa kamid halkan ka salaamay saaxiibkii Maxamed Stiin oo wadanka aan joogo asagana ila joogo qodiiso sidoo ahay marka waxaan la aqsaabtay in ay idin wadaago barnaamijkaas oo gaaban oo faniga iyo caawo igu soo dhalatay waxaan rajeynayaa kulamada dambe oo soo socdaana in aan idin wadaago dad caana ama fanaaniina in halkan idin keeno marka waxaan idin leeyahay isla socod wanaagsan anaga iloobinina in subscribe like share channelkan aan noo siidaan insha Allah naga filo oo qurux badan wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh